السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan naga daawanaysaan waa SYL Journal. barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dhulka Soomaalida waana barnaamijkii taariikhda ku soo dhawaada daawadayaal. dhulka Soomaaliya waa dhul lacag geeska bari ee Afrika waxa uu xuduud la leeyahay Kenya, Eritrea iyo Ethiopia. Soomaaliya waxa dhulkeeda loo kala saaraa dhul maqan iyo dhul madax bannaan. dhulka madaxa bannaan ee la xoreeyay 1960kii waxa uu gaarayaa 637,658 kilomitir square halka dhulka maqan uu gaarayo 429,810 kilomitir square. qaranjab iyo burbur kadib waxa ay Soomaalidu noqotay dad ka quustay dhulkii ka maqnaa. Soomaalida kale ee lagu hayay gumaysiga waxa ay waayeen qaran adag oo u soo galbiya walaalahoodii laga gooyay, waxaana xorriyadda dhulkaasi u dhintay dad badan oo Soomaali ah. raadintii Soomaali weyn ee awoowayaashii Soomaalidana waxa ay noqotay mid gebi ahaan balalaalay oo noqotay kaliya taariikh iyo xilli tagay. dhulka Soomaalida waa dhul qani ku ah macdan kala duwan iyo shidaal, sidoo kale waxa uu qani ku yahay beerasho, kalluun iyo ganacsiga. dhulka Soomaaliya waa dhul ku fiican beerashada iyo daaqa. boqolkiiba 50 dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ku tiirsan beerashada. haatan waxaan fiirinaynaa dhul baaxadeedka Soomaaliya. dhulka Soomaalida degto waxa uu gumaystihii u qeybiyay ilaa iyo 5 gees sida uu muujinayo calanka shanta ah ee Soomaaliyeed, kaasi oo astaan u ah qowmiyadda Soomaalida oo dhan. Soomaalida waxa uu gumaystuhu u qeybiyay sida tan: geeskii koonfureed oo dhul ahaan gaarayo 461,537 oo kilomitir square, waana geeska ugu weyn Soomaaliya. waxa uuna geeska koonfureed ka kooban yahay 11 gobol oo xeeb iyo dhul beereedba leh. waxa uuna geeska koonfureed saldhig u noqday shanta Soomaaliyeed, waana magaalo madaxda qowmiyaddii Soomaalida ee la kala qaybiyay. geeska waqooyi waxa uu dhul baaxadeedkiisu gaarayaa 176,120 kilomitir square. waxa uu dhulkani ku caan yahay dhaqashada xoolaha. waxa uuna geeskan ka kooban yahay 7 gobol, waana xarunta labaad ee saldhigga u ah shanta Soomaaliyeed. geeska Soomaali galbeed geeskani waxa uu ka kooban yahay 9 gobol, waxa uu dhul baaxadeedkiisu gaarayaa 279,252 kilomitir square. waxa uuna geeskani ku tiirsan yahay dhaqashada xoolaha, ganacsiga iyo beerashada. geeskani waa xarunta dhaqanka ee qowmiyadda Soomaalida. geeska koonfureed ee NFD ee loo yaqaano 6dii magaalo, geeskani waxa uu dhul baaxadeedkiisu dhan yahay 127,358 kilomitir square, waxa uuna ka kooban yahay 6 magaalo. waxa uu gobolkani ku tiirsan yahay ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha. geeska xeebta Soomaaliyeed ee hadda loo yaqaano Djibouti, geeskani oo maanta loo yaqaano dalka Djibouti, waxa uuna dhul baaxadeedkiisu gaarayaa 23,200 oo kilomitir square. 23,200 oo kilomitir square. waxa uuna ku tiirsan yahay ganacsiga, kalluunka iyo walxo kale oo la mid ah. qowmiyadda degta geeska bari ee Afrika waa qowmiyad ka siman af, dhaqan, midab iyo diin. arrimaha keenay inay kala irdhoobaanna waxa ugu weynaa qorshihii reer galbeedka ee damaca kheyraadka ku dhisnaa. midnimada iyo iskaashiga qowmiyaddani waxa ay ahayd mid Afrika u furi kartay weji cusub oo ka weecin kartay ku tiirsanaanta reer galbeedka. qowmiyadda Soomaalida waxa ay ahayd halka qowmiyad ee iska tirtirtay raadadka gumaysi iyo ka hortagga abuuridda raad gumaysi.
taasi oo shisheeyaha ku abuurtay walaac. waxa ayna diyaariyeen qorshihii lagu kala irdhayn lahaa iyo sidii khayraadkooda looga dheefsan lahaa. waa ayna ku guuleysteen arrimahaasi. waxyaabaha qarsoon ee la sheego ayaa ah in dalka Ingiriiska uu ka shaqeeyay kala qaybintii Soomaalida, taasi oo u arkayay inuu ku guuleysan karo qorshihiisa. maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeeni taariikhda qaybtiisa dhulka Soomaalida. waxaa idin soo jeedinayay anigoo ah Liibaan Cabdillaahi Aflaax. kulanti dambe oo xiiso leh.